آدي آدان متقانا هوشة بلشدة وهي سينا إذن كوهم بليها عمر إسلاو ننكا سواد من هذه مدحصر نسوها يوم مدبرا سو الشقيقي برلمان كركا للمهم أوغا جري رنتي أنا أن أدكو جيسهاي آدي آدان متقانا لهاي سمر إيمان الله كسي ومدى صوماليين وحيابه عمر إسلاو maamuladii kala duwanaa uu ka soo qabtay maxaad inooga xusi kartaa arrimaha lama ilaabanka waxaa kamid ahaa oo Umar oo Soomaalida u qaabishanay gaar ahaan baarlamaanka waa arinta oo shuruucda la xiriirta oo sharci kasta oo qaranka Soomaaliya uu leeyahay intii uu xorriyada qaatay hadee gurigiisa ayaa kayd u aheedo markii loo baahday isaga la weydiin jiray oo keeni jiray oday uu ahaa marka Umar hadee marjaca wuxuu ahaa shuruucda dalka ay baarlamaanku mataqaanaa reference ka dhigtaan oo ahaa arrimaha lagu xusaysan karo waxa la leeyahay Umar Islow maamulkan Xasan gargurtu uu hogaamiyo oo kale muddadii isbitaalka uu ku jiray wax dhaqaalaha kama uusan helin oo xitaa waxa ay keentay in maamulka uu yiraahdo meedkiisa lama bixinayo umuurahaas iga waran runtii arrimahaas kulleeyto waa xildhibaanada ama mataqaanaa qoyskiisa ama mataqaanaa jinfada uu ka soo jeedo Umar oo aad ogtahay inay beesha mudulud mar walba waa ay jirtay waa dadaalaysa hadii dawladdu xataa wax sii weyda isagu mar walba mataqaanaa qoyska oo ka soo jeedo ama mataqaanaa waa ogtaa baarlamaanku beelo ku kala abtirsada mar walba waa la garab taagnaa hadda heer qaranna mataqaanaa adiga dhaliil ka soo yeerto adiga oo la kari waayana hadda ma aysan waayahay umurahan haddii aad u kurgasheen oo kale lacagta la idin sheegay in Umar Islow isbitaalka uu ku geeriyooday looga lahaa imise ayaa la idinku sheegay waxaa la ii sheegay $120,000 dhanka kale balsaraado marka geeridan Umar Islow laga yimaado waxaad iga warantaa waayahan waa tii siyaasadda iyo masraxa siyaasadda laga waayay umurahaaga halkay ku dambeeyeen runtii waad ogtahay waatii mataqaanaa dawlad cusub oo baarlamaan cusub le mataqaanaa la galay 4 sano loo idmada howlaha marka anagu mar walba hadda waxaan jeclahay in dawladdu ay shaqayso oo mataqaanaa ay kaalinteeda gudato ummadda Soomaaliyeed one man one vote ay gaarto taasaan u ololeynay inkasta oo mataqaanaa hadda howlihii sidii la rabay aynan mataqaanaa ay u socon hadana taasaan mar walba anagu oo dhaqaaqa waxay ahayd in dalka hadeer la xoreeyo oo shabaab oo dhan laga cirib tiro waxyaabahaasaan higsanayna anaga jaanisna in la siiyo waa fiicanta marka jaanisaan bixinaynay ay dadku ay hawsha loo idmaday inay ku shaqeeyaan ayaan mar walba mataqaanaa aan bixinaynay marka waxaan diidaynaa isbarbaryac marka mar walba waxaan rabnaa marka qaabciyadeed oo kartile lagu socdo waxaasaan marka weli ka dhur sugayna jaaniska aad ka dhur sugayseen haddii aad sugteen maxaa idinkaga soo baxay runtii hadda waxaa inoo muuqdaa in sidii aan rabnay inahayn oo arrimuhu ay dhaliilo inay muuqato laakiin weli hal la saxaan leenaha laakiin dhaliilo waa muuqata maxaa kamid ah dhaliiladaasi hadda aad inoo carbaabi kartaa horena waan uga hadalnay runtii waxaa kamid ah in goboladii iyo degmooyinkii ay gacanta dawladda soo geli waayaan oo muddo 1 sano la dhaafay waxay ma ogtahay 4 sano in la beeqaamiyo oo ay noqoto sanadka koobaba gacanta dawladda la soo gelisho gobolada ee degmooyinka hadda sanadka kale toodna horumar la sameeyo oo dhinaca dhaqaalaha iyo mataqaanaa horumarinta gobolada ee degmooyinka hadda sanadka saddexaadna ay noqotay in axsaabtii iyo wixii oo dhan la diyaariyo oo dalka mataqaanaa oo isu socdo
kadibna in sanadka kalena doorasho loo dareero sidaas ay qorsho ahaa marka qorshihii inuunan markaas oo gaabis yahayo taasi ay hadda weli ka jira taas waa dhaliishan arkay